Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Somali Youth Scholars. Haddii ay tahay dabcan markii kuwada soo booqatay YouTube kusoo dhawaayaan kuleen howlan. YouTube-kan waa YouTube aan ugu talagalnay inaan ku caawino dhalinta Soomaaliyeed oo nagu soo gudbino fursadaha maanta ka jira dunida dacaleeda oo la mid ah Green Card Lottery-ga, deeqada waxbarashada iyo waxyaabaha kale hoos yimaada. Insha Allah maanta mowduuc aad u muhiim ah ayaan isla eegi doonaa oo ku saabsan Green Card Lottery-ga, qaas ahaan form lagu magacaabo affidavit of support. Insha Allah formkan dad badan ayaa su'aalo badan iga soo weydiiyay wuxuu yahay qofka laga rabo. Formkani affidavit of support waa form yani laba nooc ayuu kale yahay, laba nooc ayaa jirta formkani. Mid waa I-134 sida kan hadda meeshaan idinkaga muuqdo oo dadka badan ee Green Card Lottery-ga oo la soo weydiiyo, iyo form kale I-834 form kale la dhahay jiro. I-134 and I-134 and I-834 labadaas form. Midkani 834ga formkaas waxaa waaye waa form loogu talagalay inay buuxiyaan, yani kasoo qaad waalidkaaga Mareykan jiro, hooyadaada camal jirta mise aabahaaga camal aad Soomaaliya joogta uu ku soo dacwoonayaa. Marka formkaas qofkaas camal laga rabaa inay buuxiyaan, adiga lagu matagay inay buuxisid. Yani waxa waalidka inay soo buuxiyaan ay formkaas adiga ku soo diraan, safaaradda ay u soo diraan. Marka formkaas waa form noocaas I-834. laakiin I-134 waa form loogu talagalay dadka Green Card Lottery-ga u soo baxay inay buuxiyaan. Yani hadalkan markaan leeyahay dadka Green Card Lottery-ga inay u soo baxay loogu talagalay inay buuxiyaan, yani ma ahan inay waajib ay ku tahay. Yani formkani waxaa waajib ka dhigi karo safaaradda ay ku xiran tahay. Yani safaaradda hadday dhahdo formkan uma baahnin, yani qofka uguma baahnin formkan inuu noo keeno, waxa waaye wax problem ma lahan laga maro. laakiin safaaradda hadday ku xukunto ay ku dhahdo formkan waa keenaysaa, waa keenay. Safaaradaha oo formkani badana dadka soo weydiiyo waxaa ka mid ah Kenya. dadka interview Kenya ku maro wareysta dad badanaa arkay, Kenyaati ahaadaan, Ugandese ahaadaan, Soomaali ahaadaan, qof walbaa laga rabaa formkan way soo weydiiyaan. Formkani wuxuu yahay bal idin sheego. Formkani affidavit of support waxaa waaye waa form yani ka hadlayo dhaqaale ahaan, yani dhaqaalahaaga. Sidoo kale formkan adiga maahan qofka buuxinayo, waxaa loogu talagalay inuu soo buuxiyo qof Mareykan ku joogo, yani ha ahaado qofka ku degi doontid Mareykanka oo addresskiisa aad ka dhigata meesha formka DS-260 markaa buuxinaysid qof ay jir Soomaali addresska ku qortay guriga ku degi doontid. Qofkaas ha noqdo mise qof kale ha noqdo, yani laakiin Mareykanka joogo, qofkaas ayaa waxaa formkan ku soo buuxinayaa. Akhbaareedkiisii waa isla fiirin doonaa waxyaabaha oo laga rabo inuu buuxinayo qofkan. Marka wuxuu soo buuxinaa akhbaareedkiisii, meeluhu ka shaqeeyo, xag dhaqaale ahaan, waxyaabahaas inuu kusoo qorayo formkan adigu ku soo diraya. Adiga marka waa qaadanaysaa, safaaradda la tagaysaa, maalinta interview-ga aad leedahay safaaradda la tagaysaa, then safaaradda tusaysaa. Yani waxay diidayaan qolada safaaradda, yani markaa Mareykan tagtid, yani adiga dhaqaale ahaan inaa hoosiisa laga yaabo dhaqaalaha inuu soo fiicneen. Marka Mareykan markaa tagtid haddaadan garab helin qof ku garab istaago, yani maalmaha ku cusub tahay aad shaqo aadan weli helin, yani waxaa u baahan tahay qof ku garab istaago, yani wax ku siiyo. marka hadhow intaa meel derbi yani jiif noqon meelaha ku dhicilaad waxay u baahan yihiin marka in qof bal hadhow ku garab qabto inaa heshid. marka formkan qofkaas markuu ku soo bixiyo baahidaas uu daboolaya, yani oo ah yani inaa haystid garab Mareykan markaa tagtid oo xag dhaqaalaan ka caawin doona. marka xogta guud formka micnihiisa guud waa halaas. marka waxaa adigana laga maro formka qofkaas ku soo bixina uu ku soo diray, adiga waa qaadi safaaradda geenaysa. waa inta formka waxaana waaye formkan I-134. marka I-834 adiga lagu matagay formkaas waxaa waa dadka loo soo dacwoonayo, mise xaaskeyga aana loogu soo dacwoonayo, mise carruurteyda qofkan cunugeyga waa gabadheyda waa camal loogu soo dacwoonayo, dadkaas loogu talgalay. sidoo kale formkani I-134 sidoo kale waxaa loogu talgalay dadka mesela dalxiis ahaan Mareykan u tagaayo, caafimaad dadka u tagaayo, formkaas sidoo kale inay buuxiyaan loogu talgalay dhaqaale ahaan ay meeshan ku tusaan.
waxaa lagu magacaaba nin immigrant way dhahan formkani yani immigrant ahaan markay noqdo waa formka I-834 marka sidaas uu kala ogaaday. marka formkan waxaan dhahay waajibku uma ahan, sidoo kale safaaradda ku base gareysanta aad ku gelaysid. aniga waxaan ogay midaas yani meeshan kaaga cadeynaya Kenya in liska rabo formkani I-134 ay caravan yani ay caravan marka ku dhahay yani ma ahan inay yani ay hadda ku soo sheegay yani waxa dad greenka ku guuleystay interviewga marka intaadan galin ka hor waxa way ay ku soo direen documentida laga rabo in la imaatay maalinta interviewga leedahay. marka formkan uu ku jira xawaaraadin kartiin ta YouTube fiiri video badan YouTube-ka dad badan kii interview ku mar Kenyaati ahaadan Ugandese ahaadan dad badan arkaysa oo formkan la soo weydii. marka it depends yani safaaradda ku xirantay. marka sidaas ula soco formka marka wax saa u jeedin waxa waay waxa uu ku qoran information about you like the sponsor qofka adiga ka daminka qofkaas information kiisi magacidiisi sponsor fiscal address yani address ku degan yahay the information and mailing address kiisa information about the sponsor really way socda akhbaaradkiisa qofkaas dhan. then waxa waay information about the beneficiary yani qofka ka faa'iideysan yani adiga way aduu ku soo qoray Soomaan adiga information ka qofka meeshan. marka magacaagii akhbaaradkaaga meeshan la gelinaya waxa macna ma sameynaysa buuxin aniga kulay adiga ma buuxin qofkaas Mareykan joog ku soo buuxin lahay employment information and other information about the sponsor qofka meeshu employment information meeshu yani shaqaale meeshu ka shaqeeyo ya meel waxyaabo qabtan information kiis meesha soo gelinay current hadda wuxuu qabtay current employer address meeshu hadda yani uu ka shaqeeyo addresskeeda. then income kiisa qofku wax soo galo waxyaabahaas inuu gelinay my annual income is wixii soo galo meeshan $5,000 $6,000 anything waxay ahaato. then yeah so guys halahan way formkan wuxuu ku saabsan yahay marka hana is wareernin yani wax adagna ma formkani. marka insha Allah halahan ku keenana video inuu dheeraado maro form kale ayaa jira sidoo kale loo magacaabo public charge laakiin formkaas waxa macna ma lahan qofka loogu talgalay qofka green card lottery ku guuleystay inuu buuxiyo loogu talgalay formkaas. safaarad qaran way weydiiyaan yani safaarad qaran mas'uul laakiin hadda dadka badan green card-ka waa laga cancel formkaas yani waajib kuma ahan in uu formkaas soo buuxiyo public charge lahay waxa isku wareynaysa in case di lagu soo daro sanadahan dambe iyadana isla eegi doona. so inshallah inta ku keenna video-gan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.